bil ka hor ayuunba ahayd markuu dhaawac u geystay hooyo Caasho Rashiid Cali mid ka mid ah libaaxyada uu ku xanaaneeyo siyaasi Cali Waran Cadde magaalada Hargeysa oo xilli fidee ka baxsaday goobtii lagu xanaaneyn jiray hooyo Caasho Rashiid oo muddo ku dhow bil ugu jirtay isbitaalada magaalada Hargeysa xaalad caafimaad ayaa telefishinka Somali Cable ku booqday hooyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa halkan aan ku sugannahay waa goobta uu libaaxu ku cunay Caasho Rashiid Cali oo haweeney ka soo jeeda dalka Itoobiya oo mid ka mid ah libaaxyada Cali Waran Cadde uu dhaawac xoogan ugu geystay ugu horreyn waxay faahfaahin naga siinaysaa balqaabka uu libaaxani uu cunay iyo waqtiga uu haleelay aniga xaafada guriga galayo dabadii ka soo qabsaday marka qabsatay dhulka tuure markaana tuure unaana qabsatay na qaade garawaa hoostiisna geeyay markaasa ilaa hal qof imaado waa waaye isaga halka dabada noqonayo qof imaado waa waaye inta dadka halka soo galeen dadka qayliye markaasa dadka imaade mar dambe aniga ma ogo waan horay markaasa isha dadka galiye taan soo bixi halka hodaan galay waxbaan qaaday markaan halka gaadhay na qabsaday imika oo markii hore waan iyar buuqsaday markaan dhakhtarka soo bixi laakiin imika waan soo noqday dhakhtarkii halka imaado kii oromada halkaana daweynayo atishalayo dhehardar sakrad waan noqday dadka ma imaado waxba ma eegin ya wallahi inta guriga naf keene ma imanin atiga maxay saa waxba ma imanin wallahi shilin ma hayo lacagtii loo qof wiiliyo odogi ma hayo qof wiiliyo ma hayo iyada sidee tahay ma oranin walaal ya ani gurigan joogo waxba imanin dadkii shalay baan ayadi ku garaaye uu sheegay imika labaanaya 3 bayanaya arurtii aabaha dhintay 3 bilood libaana qabsaday ya aniga wal khalaas imika waaba ma qabsan karayo inanti maxay noqotay ma oranin waranaade ya ilaa imika waa 12 ba intaan guriga imaade dhakhtarka soo bixi inanti maxay noqotay sidee noqotay ma oranin ya ma eeginde dadkii waa sidaba walaal dhakhtarkii wayna waa la geeyay dhakhtarkii wayna waa inta daweeye waxba qabansan kara wayne meel kale geebu yiri wayna saare dhakhtarkii kale na geeyay sawirkiina saare haddana royer ka eeliye royer waxaan jiifay ilaa 20 shoomo waxaan jiif garama yoolay ni waqtigiis dhakhtarkii halka waa la daweeye imika dawadii iyada way dhamaatay ka saar buu yiri markaana saare gurigana keenay mar dambe ma soo noqdin ya meel kale gee in yaro guriga eego marka guriga geestay yareegtay dhakhtar kale geeyay ku yiri ma soo noqdin dadkii waxba ma eegin ilaa imika ma arki wala Cabdiraxmaan Ibrahim telefishinka Somali Cable Hargeysa